maalin wanaagsan saaxiibada ku xiran barteena YouTube waxaan warbixinteena maanta diiradda ku saari doonaa Fahad Yaasiin oo goordhow ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. maxaad kala socotaa ciidamada maanta Fahad Yaasiin soo dhaweeyay waa sidee xaaladda guud ee magaalada Muqdisho? maxaad ka ogtahay kulanka golaha amniga ee Fahad Yaasiin uu haatan ka qayb galay? maxaa ka jira in si ka duwan sidii hore loo soo dhaweeyay Fahad Yaasiin? xogahaasi oo faahfaahsan ayaan warbixinteena diiradda ku saari doonaa, balse marka hore daawadayaal sheergareeya muuqaalka, sidoo kalena like saara barteena YouTube-na rukumada oo markaa la sii wadaaga warbixintan saaxiibadiina kale. waa tahay warar saacadahan soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in goordhow madaxtooyada Villa Soomaaliya uu ka furmay shirka golaha amniga qaranka, waxaana haatan warbixin ka horjeedinaya taliyihii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. xogta ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamaysaa in Fahad Yaasiin uu xilligan markaa ku howlan yahay soo bandhigidda caddaymo muuqaala oo muujinaya kiiska Ikraan Tahliil iyo cidda ka dambaysa. warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in xilligan kiiska Ikraan Tahliil iyo weliba caddaymaha uu Fahad Yaasiin wado ay yihiin kuwa markaa loo saarinayo dowladaha Kenya iyo Imaaraadka Carabta in ay ku lug leeyihiin. sidoo kale waxaa xusid mudan in kiiska uu soo bandhigayo caddaymihiisa Fahad Yaasiin sidoo kale ay suurtagal tahay in lagu soo eedeeyo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda warfaafinta oo xilligan la aaminsan yahay in kiiskaasi lug uu markaa ka soo geli doona sida ay xoguhu tilmaamayaan. Fahad iyo Farmaajaba waxa ay ka dhabeeyeen ballanqaadkii ahaa in 18 oo maanta ku beegan bisha 9 uu furmayo shirka golaha amniga qaranka, waxaana shirkan dibadjoog ka ah ra'iisul wasaare Roble iyo wasiirka amniga cusub Cabdullaahi Maxamed Nuur. xogaha ayaa waxa ay tilmaamayaan in markaa kulankan uu soo idlaan doono saacadaha na soo aadan, balse xogtu waxa ay tilmaamaysaa in guud ahaanba markaa caddaymaha ay soo bandhigi doonaan dhinacyadan saamayn togan iyo weliba mid tobanba ay ku yeelan doonto xukuumadda. xilligan Farmaajo uu sheegay in markaa shaqo joojinta lagu sameeyey Roble awoodihiisana la dhimay. xogaha ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in Fahad Yaasiin maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ay ka soo dejiyeen ciidamo aad u abaabulan, kuwaas oo horay aan markaa loo arag, waxaana markaa ciidamadan ay ahaayeen kuwa goordhow u galbiyey madaxtooyada Villa Soomaaliya, halkaas oo horay ay ugu sugnaayeen Farmaajo iyo weliba xulafadiisa kale ee qaybta ka ah shirka golaha amniga qaranka. goordhow ayaa la filayaa in shirkan uu soo idlaado, Villa Soomaaliyana ay ka soo saarto war murtiyeed, waxaana aan la ogeyn xaaladda Roble iyo halka ay ku dambayn doonto iyo waxa ay uga jawaabi doonaan caddaymaha Fahad uu soo bandhigi doono maanta. haddaba daawade, maxay kula tahay fikirkaaga in xilligan uu ku dambayn doono kiiska Ikraan? yaad isleedahay kiiskan sax ahaanshihiisa waa uu ku saxan yahay? ma dhabbaa in dowladahaasi ay markaa Kenya iyo Imaaraadka ay ku leeyihiin kiiska Ikraan? fikirkaaga waa inoo muhiim. qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag, warbixintana u sii sheergaree saaxiibadaada kale. mahadsanidin.